Kenya oo Soomaaliya u soo dirtay warqad digniin iyo hanjabaad dagaal ah. Dowladda Kenya ayaa qoraal digniin iyo hanjabaad ah u soo dirtay dowladda federaalka Soomaaliya sida uu shaaciyay wargeyska African Intelligence. Wargeyska ayaa sheegay in 2 Oktoobar ay wasiirka arrimaha dibadda Kenya Raila Omama ay qoraal u dirtay dhigeeda Soomaaliya Axmed Ciise Cabad ay ugu digtay in ciidamada Kenya ay rasaas la beegsan doonaan kuwa Soomaaliya haddii mar kale ay rabshado ka dhacaan xuduudda labada dal. Qoraalkan ayaa ka dambeeyay kadib markii xiisadda labada dhinac ee xuduudda ay sare u kacday dabayaaqadii September. Markaas oo iska hor imaad kooban uu xuduudda ka dhacay, kaas oo ay ku lug lahaayeen ciidamada labada dal. Ciidamada Kenya ayaa sidoo kale shacab Soomaaliyeed ka afduubtay gobolka Gado, taas oo dhalisay cara xoogan. Wargeyska African Intelligence ayaa sheegay in safiirka Kenya ee Soomaaliya Lucas Tumba oo arrinta marka hore kala hadlay xukuumadda Soomaaliya, hase yeeshee kadib ay wasiir Omamo ay si toos ah dhigeeda ugu sheegtay in ciidanka Kenya aysan mar dambe celin doonin rasaastooda. Warqadan ayaa sida wargeyska uu sheegay la diray kadib kulan ay yeesheen golaha amniga ee qaranka oo gudoominayay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Kulankaas ayaa sidoo kale Uhuru uu ku amray taliyaha ciidamada Kenya Roberto Kibachi inuu Soomaaliya u cadeeyo in Kenya ay ka go'an tahay inay tallaabo qaado haddii rabsho kale ay ka dhacdo xuduudda. Kibachi ayaa kadib qaaday tallaabooyin lagu xoojinayo ciidamada Kenya ee jooga xuduudda Soomaaliya sida warbixinta wargeyska ay ku sheegtay. Hanjabaadda Kenya ayaa imaanaysa iyada oo horay ugu carisneed dowladda Soomaaliya, taas oo joojisay qaadkii ka imaan jiray dalkaasi, hanjabaadda Kenya ayaa imaanaysa iyada oo horay ugu carisneed in dowladda Soomaaliya ay joojisay qaadkii ka imaan jiray dalkaasi, taas oo ay sii dheer tahay xiisadda ka dhalatay sheegashada Kenya ee badda Soomaaliya.